السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta meel baad joogtaan kuna soo dhawaada janalka maanta. Magacaygu waa Maxamed Nabiil. Maanta waxaan ka hadlaynaa xanuunka dawladaha intooda badan asbuucyada u dambeeyay dhibaatada ku hayay ee coronavirus. Halka xitaa dawladaha qaar aan dadka loo ogoleen in ay banaanka u soo baxaan oo ay askartu garaacayaan cidii banaanka u soo baxda. dadka banaanka u soo baxayana qaarkood dhibaato ayaa haysata oo waxay cunaan ma haystaan marka sida ay ku kalifi karta in dadka qaar ay banaanka u soo baxaan taasna waa dhibaato jirta oo dawladaha caalamka intooda badan haysata marka dhinac kale la fiirin xanuunkan oo mid halis ah oo si fudud bulshada ugu dhex faafi kara dadkina soo dhex gasho oo aad ka taxadartaana aad ay u adag tahay marka arrintaas ay ku kalifaysa dawladaha qaar in dadka guryaha ku celiyaan kuwii soo baxana ay garaacaan tusaale waxaan soo qaadanayaa Kuuriyada Koonfureed sidee xanuunkan ugu faafay kiiskii 31 ee wadankaas laga diiwaan galiyay oo ah qof haweeney ah ayaa la sheegay inay ka qayb qaadatay faafitaanka xanuunkaas haddaba sidee u faafisay haweeneydaasi xanuunka bishii labaad 6deedii shil gaari ay gashay isbitaal ayaa la geeyay halkaas waxay dhex gashay dhaqaatiirtii iyo dadkii kale ee xanuunsanaa oo isbitaalka dhex joogay 2 maalin kadib qufac iyo xanuun dhunta ah ay dareentay kadibna waa ay ka soo tagtay oo waxay aaday kaniisadaasina waxaa joogay ilaa dad gaaraya 500 oo qof halkaas ayayna muddo ku sugneed kadib markii ay kaniisada ka soo baxday waxa ay dareentay madax xanuun isbitaalka ay dib ugu soo laabatay dhaqaatiirtii waxay kula taliyeen in xanuunka coronavirus laga baaro waa ay ka soo baxday isbitaalkii waxay aaday hotel si ay uga soo cashayso kadibna maalintii xigtay waxay dib ugu laabatay kaniisadii oo ay haddana joogeen dad ka badan ilaa 500 oo qof markii ay ka soo baxday kaniisada waxa ay dareentay xanuun saa'id ah dib ay haddana waxay ugu soo laabatay isbitaalka mar kale haddana dhaqaatiirtii waxay kula taliyeen in xanuunka coronavirus laga baaro markii ay ka baareena natiijadu waxay noqotay in laga helay maalintii xigtay dawladdu waxay sheegtay in haweeneydaas tahay qofkii 31 ee laga helay xanuunka maalmihii xigana dadka xanuunkaasi uu ku dhacay ayaa aad u batay waxayna qaarkood ka tirsanaayeen kaniisada ay haweeneydu tagtay dhinaca kale Yurub wadamo kamid ah waxay la ilmeynayaan xanuunkan dhibaatada uu ku hayo oo wax ay sameeyaan ma garanayaan midowgii ay ku mideysnaayeenna waxba uma qaban karo Mareykankana warkiisaba iska dhaaf isaga tiisa xal u la madaxweynaha Serbia ayaa yiri midowga Yurub waxba nooma qabanayo waxa uu ahaa midowgaasi mid khiyaali ah oo waraaq ku qoran dawladda kaliya ee hadda caawin karta waa jamhuuriyadda Shiinaha dalka Shiinaha hadda waxa uu noqday mid saacidaad u fidinaya wadamada uu dhibaatada u geystay xanuunkan sida Serbia, Faransiiska, Spain iyo wadamo kale oo badan waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya saacidaadda dawladaha dhibaataysan ganacsadaha ka soo jeeda Shiinaha ee caanka ah ee iska leh Alibaba iyo shirkadda Huawei haddaba marka aan u imaano Soomaalideena ugu horreyn Allah subxaanahu wa ta'ala hanaga badbaadiyo xanuunkan wadankeena kama mid ahan wadamada uu ku faafay sidaasi oo ay tahayna saameyn ayuu nagu yeeshay sababtoo ah Soomaalideena ma nihin dad wax soo saarta lacagta xitaa aan wax ku gadanno inteeda badan dibadda ayaa laga soo diraa haba u badnaadeene wadamada Yurub dadkii dibadda joogana intooda badan guryaha ay ku karantiilan yihiin oo iyaga ayaa u baahan in la caawiyo haddaba xalku waxa uu yahay inaan iscaawino Soomaalideena oo aan ku dadaalno ganacsiga iyo wax soo saarka dalkeena si aan dhaqaale ahaan u korno waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka xiga ee noo balana